runtii maalintii shalay ahayd bishu 25 ahayd waxaa dhacay wax aan ku tilmaami karno inuu silsilaal siyaasadeed ahaa oo anagu aanan filanayn ka Puntland ama shakhsiyan xogtiisana aanan war u haynin laakiin markaan ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay aan dib u akhrinay waxyaabihii dhacay doodo badan aan ka galnay noo soo baxday wixii halkaa ka dhacay inay ahayd wixii quruxda badnaa ee ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb iyo diiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu xagal daacinayo oo la rabo in lagu burburiyo arintaas waxaan runtii mas'uuliyaddeeda saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda maxaa yeelay wixii uu noo sheegay iyo wixii aan ku heshiinay oo dhan waxaan ahayn ayuu ku dhaqaaqay habeenkii shirku dhacayna anagoo la nimid niyad sami khudbadihii dadkuna ay u ekaayeen kuwo isu soo dhaweyn ah khudbadiisii waxay hordhac u ahayd in wixii meesha uu aan ku gaarnay uusan raalli ka ahayn ajendayaal kaleetana u wato waxaan aad uga xumahay wixii shalay ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u cadeeyo aniga oo dawladda federaalka ah muddadii aan hadda wada shaqaynayno ay aad u fiicnayn kalena saaraynin madaxweynaha iyo prime ministerka laakiin muddadii hadda aan galmudug joogno waxa ay muuqanaysay prime ministerku inuu diyaar u ahaa wixii lagu heshiiyay inuu fuliyo uu nagala hadlayay waliba waxyaabaha ay sida u fuli doonto uuna u hayay in dalku doorasho uu gaarsiiyo waqtigeeda ku dhacda oo suuragal ah oo u muuqata mid qof walba uu filayo ah doorasho dadban inuu qanaacadaas qabay xilka sida sharci darrada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dawladda federaalka iyo dawladda